inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ku geeriyooday Allah u naxariistay Professor khaliif galaydh. Waxaan halkan ku eegi doonaa taariikhdiisa oo kooban. Dr. khaliif galaydh waxa uu ahaa siyaasi Soomaaliyeed waxaana uu mar soo ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 2000 ilaa 2001 wasiirka arrimaha gudaha 1965 ilaa 1967 iyo wasiirka warshadaha 1980 ilaa 1982. Cali waxa uu ku dhashay gobolka Sool halkaas ayuuna qaybta hore noloshiisa ku soo qaatay inteeda badneed ilaa uu ka dhameeyay waxbarashadiisa asaasiga ahayd ilaa markii dambe uu dugsiga sare ku dhameystay degmada Sheekh. waxa uu ahaa aqoon-yahan darajada tacliinta maadiga ka gaadhay PhD. waxa uu ahaa macallin iyo qof muddo dheer soo ahaa shaqaale dawladeed oo qaybo kala duwan dawladda ka soo shaqeeyay. Dr. khaliif galaydh waxa uu in muddo ka soo shaqeynayay qaybaha waxbarashada Soomaaliya isagoo macallin iyo baraka soo ahaa macadkii Somali Institute of Public Administration SIBA ee maamulka dawliga lagu baran jiray halkaas oo markii dambe ka noqday agaasime. khaliif galaydh waxaa lagu xasuustaa simida barnaamijyo horumarineed oo Soomaaliya ka socday 1970 ilaa 1980 isagoo si gaar ah u maamulayay mashruuca sonkorta ee Juba. galaydh waxa uu sanadkii 2000 noqday xildhibaan iyadoo isla waqtigaasi uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay dawladda madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan. khaliif galaydh waxa 2014 loo doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo oo aanay dawladda federaalka ee Soomaaliya weli aqoonsi caalami ah aanay siinin. Cali waxa uu dadaal xoogan ku bixiyay in la helo maamul gaar ah gobolka Sool iyo Sanaag oo ka madax bannaan Somaliland iyo Puntland balse markii dambe waxa uu la heshiiyay Somaliland gaar ahaan xukuumadii uu maamulayay Axmed Maxamuud Siraanyi waxaana uu dhintay haatan iyadoo aan la fulin heshiiskii la galay. waxaan halkan ka eegi doonaa waxbarashadiisii 1962 ayuu khaliif galaydh dhameeyay dugsiga sare ee Sheekh oo ka tirsan gobolka Togdheer. 1965 waxa uu Cali dhameeyay waxbarashadiisa jaamacadda ee heerka koowaad taas oo uu ku qaatay jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka. 1969 Cali waxa uu jaamacadda Shere University ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ku diyaariyay darajadiisii labaad ee jaamacadda. 1972 ayuu khaliif galaydh uu diyaariyay 1972 ayuu galaydh PhD-diisa ka diyaariyay isla jaamacadda Shere University ee dalka Mareykanka halkaas oo ku gaadhay aqoonta tacliinta maadiga tan ugu sareysa adduunka. way aragnimadiisii dhanka shaqada 1965 ilaa 1967 khaliif galaydh waxa uu noqday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya. 1970 ilaa 1973 Cali waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa macadkii barashada maamulka dawliga ee Somali Institute of Public Administration SIBA qaybtiisa tababarka cilmiga baarista. 1973 ilaa 1974 ayuu soo ahaa agaasimaha guud ee macadka barashada maamulka dawliga ee SIBA. 1974 ilaa 1967 waxa uu soo ahaa agaasimaha guud ee warshada sonkorta ee Jowhar Isnaay. 1976 ilaa 1980 Cali waxa uu ahaa gudoomiyaha fulinta ee mashruuca sonkorta ee Juba. 1980 ilaa 1982 khaliif galaydh waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya xilligaas oo ay si weyn uga socdeen dalka mashruucyada ay ka mid ahaayeen warshadeynta dalka. 1982 ilaa 1984 waxa uu saaxiib fiican la ahaa xarunta arrimaha caalamiga ee jaamacadda Hartford. 1984 ilaa 1986 waxa uu sidoo kale lahaa saaxiib fiican oo xarunta darasaadka bariga dhexe ee jaamacadda Hartford. 1986 ilaa 1989 waxa uu la taliye u ahaa shirkado gaar loo leeyahay oo Mareykanka ka jira. hay'adda gaarka ee Mareykanka USAID iyo qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan barnaamijyada horumarinta. 1989 ilaa 1991 galaydh waxa uu caawiyay professor ka soo ahaa qaar ka mid ah jaamacadaha Mareykanka ku yaala. 1991 ilaa 1994 Dr. galaydh waxa uu ahaa kulamaane professor qaybta maamulka dawliga ee Shere University ee magaalada New York ee dalka Mareykanka. 1994 ilaa 1996 waxa uu Cali ka ahaa jaamacadda Shere University professor dhiga maamulka dawliga iyo xiriirka caalamiga.